السلام عليكم صاحب عيال. maanta iyo muuqaal cusub. maanta muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa ninka ugu buuran dalka Pakistan ee loo yaqaan Khan Baba iyo ninka ugu dacwadaha badan dunida. ku soo dhawaada muuqaalka saaxiib cayal. ninka ugu dacwadaha badan leh waxa uu dadka ku dacweeyay waxyaabo maalayacni ah oo qosol ah. magaciisu waa Jonathan Lee Regis. waa muwaadin u dhashay dalka Mareykanka. waxa uu noqday dacwad oogihii ugu badnaa ee dacwad soo oogay. dacwadaha uu soo oogay qaar ka mid waa bilaa sabab iyo wax lagu qoslo. qofkii koowaad uu dacweeyay waxay ahayd hooyadii, waxaana uu ku dacweeyay inaanay si fiican u soo karin, waxaana uu ka qaaday lacag magdhow ah oo gaadhaysa $20,000. qofka labaad ee uu dacwad ku soo oogay waxay ahaayeen asxaabtiisa, isagoo ku eedeeyay inaanay si fiican ula kaftami jirin. waxaa kaloo uu ku eedeeyay in aanay waqtiga uu la ballamo ay kasoo daahi jireen. waxa uu kaloo dacweeyay dariskiisa, macallimiintiisa, xataa xaaskiisu dacweeyay. waxaa kaloo uu dacweeyay madaxweynayaasha wadamada qaar. tirada dacwadaha uu oogay waxay gaadhayaan 26,000 oo dacwadood, waxaana uu ku guuleystay abaalmarinta Guinness World Record. haddana waxa uu dacweeyay mas-uuliyiinta Guinness World Record, waxaana uu ku dacweeyay inay caan ka dhigeen. haddana waxa uu dacweeyay qaar ka mid a shirkadaha sameeya giimiska, isagoo ku dacweeyay in waqtigii uu yaraa ay ka lumiyeen waqti. waxaa suurto gashay in dacwadihiisa kadib uu helo lacago badan oo gaadhaya $850,000. haddaba arrinta la yaab kale waxay tahay, mar uu warbaahinta siinayo warbixin ayaa wax uu weydiiyey wariyihii wareysanayay waa maxay sababta ay dadku ii jeclaan layiin. wariyihii ayaa ku qoslay su-aashiisa. dabadeed waxa uu kusoo oogay dacwad isagoo ku eedeeyay in uu ku ciyaaraanba ku dheeleelay, dareenkiisana uu dhowri waayey. waxaana uu ka qaatay lacag magdhow ah oo gaadhaysa $20,000. kani waa Khan Baba, ninka ugu xooga weyn Pakistan. ma ogtahay in uu guurka diiday 300 oo gabdhood? ma ogtahay inuu cunto badan cuno oo aan macquul ahayn inaad cunto? sidee ayuu awood u leeyahay inuu gacantiisa ku joojiyo gaari soconaya? Khan Baba waxaa lagu magacaabaa xoogweynaha Pakistan. culeyskiisu waa 435 kilogram. waxa uu aaminsan yahay in uu inta nool u xoog weyn yahay. waa wiilka cureed qoys maalqabeena. waxa uu dhashay 1994. markuu dhashay caadi ayuu ahaa sida dadka oo kale. lama filayn inuu noqon doono nin aad u xoog weyn. inta badan waxa uu noloshiisa ku qaatay magaalada Mardan ee gobolka Khyber Pakhtunkhwa ee dalka Pakistan. waxa uu badan ka xiiseeyaa inuu ka qayb galo tartanka musaaracada oo uu daawanayay tan iyo yaraantiisii. dhererkiisu waa 2 mitir. Khan Baba waxa uu sheegay in uu 2 saacadood oo kasta oo maalintii ah wax cuno, isla markaana aanu u adkeysan karin gaajada. jalwadkiisa maalinlaha mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay in uu maalin walba uu cuno 36 xabo oo beed ah amba ukun ah, 4 digaaga, 3 kiilo oo hilibka shiilan ah, 5 litir oo caano ah, 7 saxan oo bariis ah, 4 saxan oo khudaarta cagaaran ah, waxaana cuntada u kariya 12 kuug oo afar wada socda. rootiinkan joogtada ah waxa uu keenay in uu miisaankiisu kordho, waxaana uu ku sii dhawaanayaa 500 oo kg. Khan ayaa wax dhibaato ah ku qabin culeyskan saa'idka ah, waayo waxa uu mar walba sameeyaa jimicsi joogto ah taasoo ka caawinaysa caafimaadkiisa. Khan Baba waxa uu guur ka diiday 300 oo gabdhood, sababtuna waa inay ka yar yihiin xagga jirka oo aanay sinaba iskula socon karin. waxa uu doonayaa in lamaanihiisa ku habboon dhererkeedu yahay 6 feet iyo 4 inch. waxa uu sheegay in ay culeyskeedu ka badan yahay 100 kg. sidoo kale waa inaad taqaanaa xirfadda cunto karinta. Khan Baba waxa uu bilaabay in uu miisaankiisu kordho markii uu jiray 18 sano. Khan Baba waxa uu sheegay in uu caafimaad qabo, balse dhibaatada haysata ayaa waxay tahay in ay ku adag tahay fuulidda iyo ka tegidda gawaadhida. waxa la kulmaa dhibaatooyin intaan ku safray gawaadhida sababo la xiriira ciriiriga gabaasha.
waxa uu hanjabay Israa'iil oo duulaan ku ah dhulka Falastiin, isagoo sheegay inuu Yuhuudda awoodiisa kaga hortagi doono haddii aanay joojin dhul ballaarsiga ay wadaan. Suxufi weydiiyey su'aalo aanu ku farxin ayuu kala tuuray oo uu ku tijaabiyey xooggiisa. Dadka yaqaana Khan Baba ma yaqaanaan gacan qaadka oo bannaanka ayagoo gacan haadiyaan. Waxaa dhacday nin aan aqoon badan u lahayn in uu salaamo oo uu gacan qaado. Khan Baba oo ciyaar uga jeeda ayaa gacantiisa xoog u qabtay, waana uu jabin gaaray gacanta heer uu gaaro inuu ilmeeyo.